السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walba maqaamku iga taagan yahay ayaan ku salaamay. meel walba aad kala joogtaan waxaad i rajaynayaa muuqaalka inaad ku daawan doontaan cumri dheer iyo caafimaad insha Allah. waxaana wanaagsan subax wanaagsan, galab wanaagsan, duhur wanaagsan, maqrib wanaagsan, wax walba ay ku tahay wanaagsan maasha Allah. maanta iyo waxaan sameysanaynaa doorsho ma ku dhibtay mar walba ma isku dhacdaa, mar walba markaa dibka aad gelisay dhexda ma isku duntaa. oo haddaba kaale oo daawo tiimka doorshada rabo inay samaystaan haddana weliba si fudud ay ku samaystaan. maanta waxaan sameysanaynaa maasha Allah tabaarakallah doorshadaas aad u jilcan aad aragteen maasha Allah tabaarakallah. midda kale meeshan waxaan ku haysanaa bur 2 koob oo bur ah iyo waxaan ku darsanay baking powder maasha Allah tabaarakallah. waa ujeedaa waa isku dhex qasnay maasha Allah. hadda waxaan rabnaa inaan sameysano ukuntiina waan diyaarsanaynaa. iskana saxankii oo doorshada lagu shubaayay waaye waa inaad hoos saliid u marisid. saliidaasna waxay kaa saacidaysaa iyo burka inaysan ku dhigin doorshada. marka maasha Allah tabaarakallah asxaabteyda waxaan jeclahay step by step wax walba aan sameynayo si tartiib ah waxba niga qarnin inaan idin tuso. asxaabey soo dhawaada. hadda meeshan waxaan ku haystaa 4 ukun ah. 4taas ukun ah meeshan ku soo daray. marka adiga hadaadan haysanin makiinada lagu shiidayo doorshada lagu sameeyo ama baahka kale lagu sameeyo caadi waa makiinada cabitaanka lagu sameyn karaa. koob sokor ah aad ku dareysaa maasha Allah tabaarakallah iyo saliid oo nus koob oo saliid ah maasha Allah. marka maasha Allah tabaarakallah waa ujeedaa asxaabey. kadibna waxaad daaraysaa makiinada. waxaa la rabaa inay isdhexgalaan si fiican inay isku dhexgalaan xunbada ay soo baxdo. kadibna xoogaa yar waxaana aad ku daraysaa marka doolsho walba caano lagu daro maasha Allah tabaarakallah. saliideedana aysan ku badnayn ayna ku yareen wuxuu noqonayaa doolsho laga yaabo jiljileeciisa aad iyo aad u jilicsan. marka adiga cabaara sida cabitaanka oo kale u shiidaysaa. markaa shiidid kadib burkii aad diyaarsatay iyo baking powderkii ayaad halkan kusoo daraysaa. haddii aad rabtid vanilla ku darsan kartaa, haddii aad rabtid hila ku darsan kartaa. marka maasha Allah tabaarakallah waa ujeedaa sidaan aan burka u sameysanaynaa. burka markaasaan ugu soo dartay ukunta diyaarsatay sokortoo soo walaa maanta soo shiiday aysan adiga xariir ahayn aysan ku dhegdhegaynin saxankay ku dhegaynin maasha Allah tabaarakallah. hadda waa ujeedaa doolshadeeni waa noo diyaar. just waxaa noo dhiman inaan dubno oo saxanka aan ku shubno. biyo zaa'idna ma ka dhigaysid, adeeg zaa'idna ma ka dhigaysid. waa qiyaastaan la rabaa. qiyaastaan haddaad ka dhigatid waxaa kaaga soo baxaayo doolsho fudud 5 daqiiqo doolsho aad ku samaysatay aad la yaabi doonto. dadka dhan la yaabi doonaan, qofkii cunana la yaabi doono maasha Allah tabaarakallah. haddana waxaan ku shubanay saxankii haddaad diyaarsanaynay oo saliida. saxanka waa inaad saliid iyo bur aad marisaa. horna waa usoo sheegay haddana kuugu soo celinayaa walaalkeyga ama walaasheyda haddaad adiga xaafadaada ku samaysanaysid. dabkana waa 150. marka hore hoos aad daaraysaa oo 150 ah ilaa iyo 180. haddii markuu soo fuurana oo doolshada isoo bixisana korna waxaad ku daaraysaa 180. sidoo kale asaga dhanba wuxuu ku jiraanayaa qadar 15 daqiiqo ilaa iyo 25 daqiiqo. marka maasha Allah tabaarakallah doolshadaas aad iyo aad u macaan badan aad iyo aad u qurux badan ayaa noo soo baxday. waana arki doontiin doolshada siday noqon doonto. doolsho aad iyo aad u jilicsan ay noqon doontaa. gacanteedaan idinku tusi doonaa. hadda saxanka markay qabowdo kadib markaas adiga cabaar 5 daqiiqo ay taala banaanka aan soo bixiyay. waa ujeedaa hadda doolshadan maxaa ka maqanaad isleedahay? wax ka maqan ma lahan ilaa iyo cunis mooyaane iyo koob shaahi ama qofkii caano rabo inuu ku cabo oo jecel yahay inuu ku cabo caano. haddana dhexdiisaan ku tusayaa inaysan ceeriin ahayn iyo inaysan adeeg ahayn. sidee aada jiljilic u noqotay softiga ee u tahay. mar walbaba gabar walba waxay ku hamisaa keegkeega inuu noqdo keeg ay gacanteeda ku samaysay, keeg la ammaanay, keeg aad u jilicsan, keeg dadka dhan ka heleen. haddaba walaal ama walaasheyda haddaad ka heshay muuqaalkan videoga commenti iigu reeb. commentiga waa muhiim, dhiirgelinay ii tahay. subscribe haddaad adiga subscribe ii tahay asxaabteeda aad ka mid tahayna asxaabta kale sii gaarsii, walaalaha kale sii gaarsii si ay u faa'iidaystaan casharada dambe soo dhacayo insha Allah.
adigana haddaadan ka mid ahayna walaalkeyga ama walaasheeda igu soo biir. Waxaan jeclahay mar walbaba inaad aniga muuqaalka meel fog aad gaarsiisid, adigana aad sii faa'iidaysatid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada kulanka dambe oo xiiso leh.